Asalaamu calaykum asxaabtayda igu xiran wayna isalaamay meel kasta dunida ka joogtaan waxayna leeyahay waxayna tahay wanaagsan maanta mowduuceena muxuu yahay hayniga hordhicin ka aragtaan misqolaalka meesha ka qoran oo ugu jeedaan muxuu waalidka ka faa'iideysanayaa maadaama uu caruurta diintooda uu ku dadaalaya waalidka wax barbaarinaya ilmihiisa tarbiyeynaya oo diinta kula dadaalaya wuxuu ka faa'iideysanayaa mid ugu horeysa adduunyada ilmo diinta ku koray wax ka wanaagsan oo ka macaan oo ilaahay uu ku siiyey addoonkiisa u siiyey ma jira saas darteed buu nabi zakariya calayhi salaam markuu ilaahay uu baryayay wuxuu ku duceystay ilaahay waxay siisaa caruur wanaagsan halka waxay ka fahmeen caruur dhan in ay wanaagsaneen oo caruur dhammaantood oo khasaare ay tahay khasaare adduunyo iyo mid aakhiraba kugu filan ku ilaah uu ku hagaajiyey uu ku toosiyey kuwaas baa caruurnimadooda iyo faa'iidada aad ka helaysid ay fiican tahay mid labaad aakhiro marka la tago in alla wuxuu darajo ka siinayaa waalidkiin meesha ay ka galayaan haddii waalidka hoose oo meel isaga ka hooseeya uu la yimaado waalidka isaga u shafaaco qaadaya caruurtiisa u shafaaco qaadaysa kabacdina meel wanaagsan ayuu aabihiis hooyadiis geysanayaa ku wanaagsan tahay adina aad dambi la timaadid in ilaahay wuxuu ku geynayaa meel oo maxaa la dhihi jiro oo wanaagsan oo caruurtaada ay ka dambeysay caruur oo baariyaal oo wanaagsan oo diinta lagu tarbiyeeyay oo kuu soo duceynaysa mar kasta haddii aad nooshahay haddii aad dhimatid buu kusoo xasuusanayaan haddaa haysatid way kuu duceynayaan saddexaad waxaa waaye hadduu adduunka kaaga haro camal oo aad ka hor dhimatid camal ilmahaadii in ilmo fiican aad ka tagtay ilmahaaday fiican yihiin way kuu soo duceynayaan sadaqaday ku bixinayaan qabrigay kugu imaanayaan ayadoo oo maalinta ay ugu baahi badan tahay oo wax walba aad u baahan tahay nabigu wuxuu yiraahday ibni aadanka hadduu dhinta camal u soconayo ma jiraan camalkiisa oo dhan wuu go'ayaa waa dhimatay khalaas saddex shay ayaa ilaa mooyaane wax maxaa la dhihi jiray mooyaane mid ugu horeysa sadaqatul jaariya sadaqa aad baxsatay oo kuu socoto tan labaad cilmi intuu dadka baray oo qofka cilmiga uu baray oo dadka la sii baray oo sii faafiyey oo lagu dhaqmaayo micnaha aad qofkan qur'aan ayaa bartay cashir aad soo meelisay qur'aankaas qof kale uu sii baray qofkaas qof kale uu sii baray ajirka adiga ayaa leh adigana ajirka wax ku leh mid kale waxaa waaye hadda ilmo wanaagsan aad ka tagtay ilmaha markasta ay kuu soo ducooyaan kuu soo dukadaan ay sadaqo kuu baxiyaan ay ku imaadaan qabrigaada ay ilaahay kuu baryaan 2 rakac ay dukadaan ilaahay gacmaha kor ugu taagaan maasha Allah ilmaha wanaagsan oo diinta lagu barbaari ay hodhow ku anfacayaan waa ilmaha haddii aad maanta ilmahayna aan ka jeesano ama aan dhahna intaan soo kori waan soo kori intaan wax soo sii waan soo sii asay u taala ilmaha diinta ku barbaari markuu yar yahay ilmaha alla ka cabsiga bar ilmaha yaqaana diinta aabihiis iyo hooyadiis ayuu wax walba ka hor marinayaa beri ayuu noqonayaa baari ayuu noqonayaa iyakuba oo aaneynayaa uu hurayaa hadduu weynaado oo gaboobana gacanta ayuu ku haynayaa ilaa ay qabriga ka galaan cunug wanaagsan oo diinta lagu soo barbaari ilmaha markay yar yihiin ayay qabad u baahan yihiin baratid baad miraheeda guranaysaa ruuxii beer wanaagsan beertay oo tufaax beertay tufaaxii unbuu goosanaa laakiin ruuxii qaadameeraad beertay qaadameeraad qareer unbuu guranayaa ninkii ilmihiisa tarbiyeyni waaye duurka unbuu ka galin doonaa wax maanta aad dadkeena haysto oo waalidiinta wax hadda maxaa la dhihi jiray waalidiinteena haysta cunuga markuu yaryahay ayuu qabad u baahan yahay inaad tarbiyeysid markaas mas'uuliyad ku saaran waaye markuu weynaado maxaa ka qaban kartaa hadda waalidiinta joogaan saas ayay u badan yihiin majority yako marka ilaahay ayaan ka magan galaynaa in ilmaha markay yar yihiin ay qabad ku baahan yihiin in ilmiheen tarbiyeysano ninkii ilmihiisa tarbiyeysan waayo duurka unbuu galin doonaa waxaa waaye maanta dadkeena haysta waalidiinta dhammaantood waxay noqdeen dad aan mas'uul aan qaadi karin markay dhashaan in lagu shubto waayo waa weel faaruq weelkaas wax lagu shubi karo iyo wax xunba waa lagu shubi karaa haddii aad ku shubto baad helaysaa weelkaas eber ayuu hay nadiif ayuu hay
iyo wax xun iyo wax fiican wixii aad ku shubtid unbaad helaysaa. Marka waa inaa laga taxdiraa carruurta markay yaryar yihiin ay qabad ku baahan in oo xoog aan saarnaa. Inta badan waxay ka dhaqan qaataan aabbaha iyo hooyada. Marka aabbaha iyo hooyada waxay yihiin ay carruurta noqonayaan. Sidaa darteed, Nabiga Sallallahu Alayhi Wasallam wuxuu u yiri ilmo walba oo dhasha waxaa lagu dhalaa caqiido wanaagsan. Markaa kadib ayuu wuxuu qaadanayaa falkii waalidkiis. Haddii waalidkiis Yahuud yihiin markay dhashay, kadib ayuu Yahuud noqonayaa. Hadduu Majuus yahayna, Majuus waa kuwii dadka oo caabudo, dabka caabudo ayuu noqonayaa. Haddii Muslim yihiinna, Muslim ayuu noqonayaa. Wax alla wuxuu aabbaha iyo hooyada laga arko bay carruurta sameeyaan. Sidaa darteed bay arkaysid bay u barbaaraa aabba diinta Islaamka ku dhaqmaynin, yacni magac kaliya Islaamka ka haysta sida hadda ku badan yihiin, laakiin dadka qaadka nidaamka Islaamka uusan ka muuqanin. Ilmahaas noloshiisa waxaa laga garanayaa guriga ay ka soo barbaariyeen. Haddii ay hooyo af xun badan ee ninkeeda la dagaalanto qaxar ogaad ilmo qaxar bay dhali. Aabba isagana af xun oo sigaarka cabaa, qaadka cuna, guriga xumaanta la yimaad, ilmaha wuxuu aabihiis uu ka arko buu sameeyaa. Sidaa darteed, in aniga xun ilmahaygan wanaag baan ka doonayaa ogyihiin. Waxaa kaloo lagama maarmaan ilmaha Qur'aanka la baro. Ayaamahanay dambe carruurta iskuulada ayaa lagula dadaalaya, laakiin dugsigii waa la hilmaamay Qur'aankii Kariimka ahaa. Sidoo kale marka adiga soomaysid in ay iyakana soomaysid ahaan in ay soonka lagula leeyahay. Laakiin saxaabada saas ayay samayn jireen. Carruurta yaryar ayay la sooman jireen. Kaadhihin wuu gaajoomayaa. Doonaya in carruurta lagala dagaalamo akhlaaqyada xunxun sida caayda, dabeecadda xun, afxumada, nacalada, shaxaadka iyo waxyaalaha xunxunka waa in sidoo kale lagala dagaalamo filimada iyo shaleemada, heesaha, sigaarka iyo qaadka. Waa in waalidkiis ilmaha ka warhaya had iyo jeer, habeen iyo maalin. Waa in cunugiis wuxuu sameynaa uu ka warhaya waalidka. Aniga xun cunugaygan inuu ii fiicnaadaan rabaa miskiinaysa waa laba kala warla. Cunuga inuu ku fiicnaado darteed adigu wanaaga sameey, cunugaadana tarbiyada u horseed oo wixii xun iyo wixii fiican u sheeg, diinta kula dadaal, Qur'aanka bar, xasuusta Allah xasuusi. Adna Ilaaha ku sharfo, cunugaada ayaa meel sare ku geysan doona maalintii yawmal qiyaama. Asaana ku shafaaca qaadi doona cunuga wanaag kala tali. Asxaabtiina la sii wadaag, share-tan waa inoo muhiim, like-tan noo saaro, subscribe-tan noo saaro. Meesha u socon weliba maxaa la dhihi jiray lugta ma saarin. Waxaa rabnaa idinka inaa naga soo dhistaan tirkey wax yaraan nooga reebo wixii fariin in asxaabtiina la sii wadaag.